hadana dadkeena Soomaaliyeed waxa waa bogto badan iyo baahi badan waa la isku nacaa dadku waa ku dhibsanayaan heer waxa la gaaray salaada xanuunsan markii la yiraahdo dadku qaar ay dhahaan ma nool yahay aniga marka waa iska ooyina jabsaday oo waa qoomamay waxa iga oysiya waxay tahay niyahow kilidii aabaha ku bixiyay aabahana waa dhaafiday adigiina waa ku dhaaftay maadaama waiting list-ki laga saaro hadda kili cid kugu maqan aysan jirin aad community Soomaaliya waxa ka codsatay in nolosha marka la fursad lagu siiyo hooyo xoolo ii soo wado tuuladii keento kadibna yaani tuuladii markay keentay xoolihii ii gaday abtigayo meesha joogay igala dardaarantay waxay dhahday bal wiilka diyaarad hala saaro hadaba uu gaari qaba karin kadibna waxa dhacday in meeshii kooma aan ku kalo yaabay ugu badnaa waxay ahaayeen qofa inta calooshaada sakiin ku sarsaro macnaha wuxuu leeyahay macnaha qofkan dhajiisa haayo mar xataa in maxal yiraahdaa neef ida ah la igu qalo oo dhiigiisa la igu qabeeyo way dhacday 2 daqiiqo ama 1 daqiiqo adiga kaadi ay ku soo maadkaysi kartid laakiin aniga si aan u soo kaadiyo waxaan u baahanaa inaan isbitaalka tago mashiinno la igu xiro hadda hadii soo fududaato ilaahay soo fududeeyo oo aad hesho lacagtaas maxaad ku sameynaysaa markii aan koomaha ka soo baxay warqad cad baa ila soo baxay waxa la yiraahday aabaha aaw hooyada aaw kuwii kula dhishta aaw kulligoodba waan dilay waxaan waa dhinteen Assalaamu alaykum saaxiibayaal kusoo dhawaada muuqaalka maanta oo martin noogu yahay walaalkeen Salaad Yuusuf oo ku magac dheer Ken Ojawa oo bari ugu dambeeyay hadalhayntiisu aad ugu soo noqonaysa social media gaar ahaan aaladda TikTok asagoo waliba ku weydiisanaya caawinaad bulshadeena Soomaaliyeed si uu la tacaalo xaaladiisa caafimaad ee kaliyaha maanta waxaan rabnaa muuqaalkan inaan kula wadaagno qisadiisa caafimaad oo dhameystiran marka soo dhawaaw Ojawa walaalkay Shucayb waa mahadsan tahay waana ku dhawahay YouTube-kaada iyo maxaa la yiraahdaa wareysigaada Ken Ojawa kuleeto dadka badan salaad kuma yaqaanaan bal maanta waxaan rabnaa sheekada inaan ku bilaabano isbarasho Ken Ojawa Salaad Yuusuf bal soo dhawaaw waa dhawahay Shucayb waa mahadsan tahay aniga magacayga saxda ah waa Salaad Yuusuf kuna magac dheer Ken Ojawa oo ah magaca aan social media ku joogo kuleeto xaaladaada social media si goosgoosa waa laga warhayaa maanta waxaan rabnaa sheekadaada ama qisadaada caafimaad oo dhameystiran bilow inaan naga soo bilaawdid goortii aad ogaatay xaaladan kaliya inay ku soo wajahday Shucayb markii ugu horeeyay oo xanuunkan aan isku arkayo ama la igu arkaba waxaan jiray 3 sano nin aad u daayiraan ahay oo maxaa la yiraahdaa markii ugu horeeyay calaamadaha la arko waxay ahaayeen barar aniga dhan wada bararo de markaas oo la deganaa meel baadiyana aan ku dhashtana in la iga soo qaado de magaaladii la keeno kadibna maxaa la yiraahdaa daawooyin kalmaatiye la iska kaysiyo kadibna magaalada Muqdisho la ii soo qaado aniga markaas adiga aad u daayiraay kadibna la ii keeno maamo eedadeey ah kadibna isbitaal la ii geeyo isbitaalkii markii la ii geeyana yaani faleembooyin iyo isbitaalka la ii geeyana waxa isbitaal Brandir daawooyin kalmaati iyo waxaas la ii siiyay cirbadooyin kadibna aan fiicnaaday markaan fiicnaaday kadibna yaani xanuunkayga maadaaba kaliyaha marba nooc yihiin oo dhowrkii bilood bal ii qabanayay laakiin markii magaalada Muqdisho la keenay oo daawooyin kalmaati la ii siiyay in ciyaalkayga aan iskala ciyaarayo oo nin fiican aan noqday oo xanuunkii ka reestay laakiin dib oo mar kale igu soo laabtay isbitaallo badan oo magaalada Muqdisho ku yaal waa la geeyay oo aad u fara badan yaani marka ugu badan oo xanuunka iga maqnaanayo waxay adiga 2 bilood ilaa 3 bilood marka calaamadaha lagu gartana waxay tahay xanuunka markuu soo laba kacleynaa inuu qofka barar dareemo abadeedka ka go'o taasa aad igu soo laalaaba jirtay marka Soomaaliya kulay dhaqaatiirtii waxay sheegayeen inaan beerka ka jiranahay Soomaaliduna waa taqaanaa Shucayb meel kale ayadoo xanuuneeday meel kale ka sheegayaan xanuunka
marka waxaa dhacday in yacni markii wadankii aan isaga daba laabtay xaaladii kasii dareysa hadba in yacni wadankii aan ka bixi doono oo ay noqonayso adeerkii qeyr Allah siiyo halkan aan ka salaamayo in uu wadankii iga wado oo aan aado Kenya. علشان xilligaas maxaa u dhaxeeyay علشان meeqa jir ahayd xilligii aad adeerka u go'aansaday inuu ka kaxeeyo wax badan oo u dhaxeeyo Shucaybow Muqdisho dhaqaatiirtu ku yaalo maadaama wax badan aan ka daba wareegayay xaaladeeda caafimaadna aysan waxba ka sheegaynin oo ah qofka hadii la dhaho beerka laga haya qofkii laga daweeyo uu ka reesanaa laakiin aysan waxba ka soo yacni naas cadaanaynin waxa waaye go'aan waxa lagu gaaray in wadanka la iga wado markaasna waxaan u maleynaa adiga 11 sano meelahaas inaa jiray waa 2013 xanuunkayga aad u wajiyo badnaay dadkeena waa ku wareereen ma jiraan waxyaabo kale oo lagu la tacaalo marka laga soo tago isbitaal in lagu geeyo waa jiraan Shucaybow waxa la yiraahdaa nin boqol boqol u taliday qof walba waxbuu sheegaa oo ah yacni mar waxa xanuunkayga ugu badnaa in bogga aad la iga dhigi jiray qof waxay leedahay dhajis waxa waa meela lagu geenaa qof inta calooshaada sakiin ku sarsaro macnaha wuxuu leeyahay macnaha qofkan dhajis ahaayo maxaa la yiraahdaa qolo wadaada waa la ii geeyay waa nin wuxuu soo keeday xataa buunsho iyo kurus ma fahamtay subax walba waxa lagu leeyahay qaado shaah ku cun maxaa la yiraahdaa waxyaabii ugu badnaa waxay ahaayeen mar xataa in anoo dhan inta wada bararay malmal la ii mariyay malmalkii markii lagu mariyo malmalka maray kugula dadayaan maradii markuu kugula daday wixii dhima koole isku noqonayaan marka hadhow markii laga fujiyana maqaarkaadi waa dilaaca waxyaabii ugu la yaabka badnaa waxaas ahaayeen maxaa la yiraahdaa mar xataa in maxaa la yiraahdaa neef ida ah la igu qalo oo dhiigiisa la igu qabeeyo oo ay dhacday la igu qala علشان neefka inta la qala dhiigiisa la soo qaaday aad lagu qabeeyo علشان neefkii isla markii agtaada lagu bireenaaba adigoo fadhiyo agtaada lagu bireenaa neefkii oo dhiigiisa kulul lagu qabeena meeqa jir camal aad xilligaas aas leedahay والله waa 8 jir miyaan ahay maxaa la yiraahdaa 8 jir 7 jir meelahaas aan ahay laakiin aniga wax walba waxa taa yaraanteedii marka aad u yaraa ugu dhacay waa xasuustaa waa ii sawran yihiin marka dhiigiya lagu qabeeyay dhiigiya la igu qabeeyay neefkiya la qalay waa la bisleeyay hilibkii wixii oo dhan neefkii ay nooc calooshii gooni loo soo kariyay wax walba la soo agdhigay cunaa la igu yiri intaas علشان waalidkaaga waxay isku dayayaan in bal waxa ku haayo marba dhinac laga fiiriyo inaad ka daawoobaysid laakiin markaas lama ogo xaaladda saxda ah ee caafimaad xaaladeeda saxda lama oga dabcan waxa lagu tijaabiyay waxyaabo aad u fara badan oo Soomaalida dhaqan u leeyihiin ay aaminsan in lagu dawoobi karo goormay marka familiga go'aansadeen in mataqaana aad u baahan tahay caafimaad dalka dibadiisa waxay ahayd 2013 markii wixii oo dhan yacni wax walba la igu tijaabiyay marka waxay noqotay in la ii wado wadanka Kenya gaar ahaan caasimadiisa Nairobi deegaagaasna maxaa la yiraahdaa toos Kenya looma geli karin waxay noqonaysaa in yacni luuq dheer la soo maro marka waxay noqotay inaan Kampala tagno Kampalana aan maxaa la yiraahdaa gaari ahaan ku soo kala Kenya waliba jidkaas aan rafaad dheer kala kulanay maadaama aabahay aniga aan ahayn waxaa jirta baawur Kenya soo gasho oo Uganda xuduudda soo marta aabaha waa qofka kula safraya marka xilligaas markaas aaba ila safrayay marka waxa dhacday Kampala tagnay Kampala dhowr maalin joognay baawuraan ka sii qaadanay meel Kampala iyo Uganda u dhaxeeyo la yiraahdo Busiyo meeshaasaan tagnay meeshaasaan aan baawur kala ka sii raacnay baawurkii wuxuu nagu bedelay baskii aan saarneen xataa dhibaataan la kulanay waqti habeenay ahayd waxaa dhacday baskii oo socda in gaari cagaf oo wadada ku dansan oo ku dhaco shil gaarigii qaarkii horeeto dhan waa burburay marka aniga waxaa dhacday maadaama baska inta horeeto waxaa saaran dad Kenyaati ah Soomaalidana gadaal la geynaa maadaama meeshii sharci la'aan aan ku galeyno marka waxa dhacday maadaama kuraasta ay yareed aniga nin waxaan iskala fariistay Kenyaati ah
suunkana iima xirnayn gaariga marka waxaa dhacday gaariga markuu shilkii cagafkii dhex galay inaan anigii taraaraxo aan dhex galo kuraastii hoostooda maadaama dhar madow aan watana lii arki waaye xilligaas bukaanna waa aheedoo kolleeta qof xanuunsana waad aheedoo haa qof xanuunsana ahay marka waxaa dhacday dadkii intii badbaaday waxay ka baxayeen daaqadaha gawaarida laakiin ani waa la i weysanaaba waa la i waayey oo waan taraaraxay waxaan u dhawaaday baska afkiisii hore marka waana miyir daboolmay marka waxay noqotay in aabba ii soo laabto i raadiyo la isoo helo banaankiina markii la ii bixiyo aan shoogaba oo aan leeyahay hali dilo xabad hali igu dhufto aniga dhan isku dhex yaacay waa shoogtay haa si fiican marka sidii bas kaleetaa kusoo istaagay baskii kaleetaan raacnay maxaa la yidhahdaa Nairobi caasimadii aan tagnay eedadii kheyr allah siiya ayadana meeshaas deganeedana soo dhaweyday oo ilaa halahan oo dhan waxa waaye waxaan ku qaaday kursigii iga horreeyay xataa shilka markaan galay in isbitaal la igeeyo xaaladii keliyaha xaaladaasaba ka hormartaba oo waxay noqotay in marka hore la ila tacaalo xaaladeedii wejigii intaan oo dhan aan madoobaatay dhiiga ay galay marka alxamdulillah waa ka fiicnaaday kadibna waxay noqotay in isbitaalada Kenya ugu waaweyn aan tagno baaritaano la igu sameeyo hal kalaam oo ah ninkan keliyuhu la yahay kama aanna maqlin عشان ترجمان مودتين ترجمان waa wadanay laakiin se dhaqaatiirta Kenya ma sidaas u sameeysan ma aqaano yani ninkan keliyuhu la yahay waxaas oo dhan iima sheegi jirin عشان baaritaan nooc lagu marsiyo xiligaas baaritaan dhiiga kombiyuutaro wax walba ay sameynayeen kaliya uu baarku la yahay waxbay sheegayeen عشان وحلada علشان xaaladii Muqdisho ku soo martay oo wareerka ahayd dhaqaatiirtooda oo kala علشان intana kala kulantay ha exactly علشان si sax ah aadan u helin aan xaaladaada caafimaad wax ku haya علشان ha exactly ayadii on kale taan la kulmay marka waxa dhacday ayaga daawooyin ay siinayeen daawooyinka markay ay siiyaan sidii oo kale magaalkayga marayay waa soconayay barar ma qabin bararkii dhan waa iga dagayay caadiyan u fiicnaa daawooyin nooc lagu siinaa علشان markaas waxa ay isleeyihiin ina qabtid daawahan lagu qoraa ha daawahan la igu qoraayay saddexdii bilood oo kale dhakhtarka balana kala waa u tagaa hadana dhiig wax buu qaadaa kadib wuxuu leeyahay hadana daawadan intaas kala soo laqo marka waxa dhaceed marmar waxa laga yaabi jiray daawadii oo ii socotaba inaan xanuunsado oo bararkii oo imaado markii sawa because daawada lagu siinayo ma ahan daawada علشان waxa saxda ah qabtid ma ahan marka wuxuu kugu soo noqonayaa markaas maadaama aysan daawo sax aysan qaadanayn ha I think waxa islaha aniga daawadii saxda ahayd ma ahayn waxa qaadanaysay sababtoo xanuunka hore ka soo laabanayay marka maalintii ugu darneeda waxay ahayd anigiyo yani iska ciyaarayo xaafada jooga in yani aad xanuun ii qabto boga ah kadibna maxaa la yiraahdaa adeerkay xaaskiisa ay isbitaal ila cararto istaalkii markii la igeeyay baaritaana la igu sameeyay kulli xanuun baabiyaal iyo waxay siiyeen kadibna waxay noqotay in istaalkii adiga muddo isbuuc ah aan ku jiro istaal waliba Kenya ku yaalo ahay oo aad u qaali ah 7 maalin ku jiray lacag waliye ahayd marka kadib istaalkii markaan ka soo baxay in adeerkay oo go'aan ah oo qaato inuu Kenya iga sii wado oo ah markaas inaan aadayo Hindiya oo ah sanadkii 2015 marka 2 sano علشان aad xaaladda lagu la tacaalahay ee Nairobi marka waxay noqotay inaan maxaa la yiraahdaa aan aadno marka aaba waxaan ka soo sheeka dhaafay in aaba markuu Kenya igeeyay oo ugu wareejiyay adeerkay asagana saas oo wadankii dib ugu laaban doono u laabtay علشان ha wadankii dib ugu laabtay marka aniga adeer iyo qoyskiisa la soo koray iyo wiilashiisa oo halkan aan ka salaamayo marka waxa dhacday in maxaa la yiraahdaa Hindiya علشان safarkii lagu diyaaray safarkii al qorsheeyay kadibna aan India ku degnay India markaan ku degnayna waxa la socdo markaas dhahday markaas waxa ila socdo adeerkay caruurtiisa abtigood ay wada ha oo asna halkaan ka salaamayo marka waxa dhacday in yani Hindiya markaan isla tagnay isbitaal la igeeyay
baaritaano la igu sameeyey. marka baaritaanadii markii la sameeyey waxaa dhacday baaritaanka ugu muhiimsanayo dee weligii la igu sameynin wuxuu ahaa biopsy oo ah yacni kilida in hilib laga jaro oo ah maadaama xanuunkayga lagu wareersanaa in ay kilideeda yacni maxaa la yiraahdaa ay ay ka qaadaan si jirkaaga dhan loo ogaado calsha wax ku haya miya si fiican marka waxay sameynayaan cadkaasi waxay u kala dhigayaan 3 cad marka waxay u kala dirayaan 2 wadan oo kale iyo ayaka caday reemanayaan 2 wadan oo kalena waxay ka rabaan jawaabta ka soo baxeeyo marka waxay sameynayaan intaas markay isku imaadaan jawaabi way soo baxeen marka jawaabtu waxay noqotay kilida dhexdeeda inuu nabar ku yaalo nabar gaduudan ku yaalo marka waxay dhaheen waxay noqon kartaa ninkan markuu yaraa inay jug ku dhacday oo isaas ay keenayso maxaa la yiraahdaa kadibna xanuunka magaciisa way ii sheegeen oo waxaa la Nephrotic syndrome la dhahaa waa xanuun dhif iyo naadir ah yacni qofkan wuxuu ku dhacaa da'da 40 jiradoo kaleete boqolkiiba 2 qof oo ku dhacay dhan oo da' yar ah marka waxaa dhacday biopsiyadii iyo kadib markii la sameeyey waxaa dhacday inay daawooyin ii qoraan weliba daawooyin aad u adagoo cirbad waxaa jirtay maxaa la yiraahdaa faleembo inta lagugu daro adiga dhanba waa jirkaada dhan huraa ku furmaayo cirbado waxay ahaayeen aan caadi ahayn oo adag markaas daawooyinkaas ku siinayaan waxay ku dhaheen cudurka noocaasa ka haya kilida midig oo aan ka daaweynayna marka waxaa dhacday cirbadihiina waa la waday daawooyinna waa la wadaa geesaa laga wadaa kiniiniyaal ah oo la laqaayo marka intii markaan isku laqaayay oo muddo waday waxay dhaheen waxaa u baahan tahay hadda daawo oo sanad ah inaad qaadato oo maadaama wadankii aad ku laabatid sanadkaas markaa soo dhamaysatidna aad nagu soo laabatid halkii sano oo daawadii aan soo qaatay waxaan imaaday Muqdisho daawadii aan cunayay horta daawada intaan waday xanuunka sidii horeeto 3 bilood iguma soo laabanin waan fiicnaa hal marna ma xanuunsan sanadkaas aad baan u fiicnay marka waxaa dhacday in aan laabano maadaama dhaqaatiirtii aan ku laabano waay maadaama ay dhaheen hal sano daawo inaad soo qaadato marka waxaa dhacday sidii aan ku laabanay India markaan tagnay isla dhakhtarkii aan tagnay wuxuu dhahay baaritaano sameeyay exactly marka wuxuu yiri daawadii way fiican tahay howlay qabatay maantana transplant uma baahnid maxaa la yiraahdaa dhaqmana uma dhawid oo nin fiicana tahay marka sanad kale oo daawaha u baahan tahay marka niyo waxaa jirtay India markaan labaad aan tageyno gabar qaraabada ah oo qaraabada marka gabadhiyan aan iskala nooleen anigii ninkii walaalkay ahay walaalkay ila dhashtay dheeraalaasiyo oo naftiisa ii huraba oo diyaar u ahaa markaas inuu kali siiyo marka waxaa dhacday gabadhaas aan la deganayn in yacni gabadha maqaayaday lahayd oo maqaayaday sharing ku lahayd marka annaka maqaayadaas aan wax ka cuni jirnay gurigaan la deganayn daawadeedu waa ii socotay wax walba waa hagaagsanayeen marka niyahow sheekada haddaan dib ugu noqono waxaad noo sheegtay inaad reerkiina reemiya aheedeen reemiya ku dhalatay miya kusoo kortay safarkii dheeraa ilaa Kenya lagula galay dabcan qarash badanaa ku baxayo haddana India lagula aaday ashan qarashkaas sidee u maarin jirteen shucaybo waa sax waa su'aal isweydiin mudan qarashaadka waxaa iga dabarayay adeerkii khayr Allah siiyo oo hore aan kugu sheegay oo inuu dalka iga waday markii yacni xaaladeyda dhaqaatiirta Soomaaliya waxba ay arinkayga ka qabo waayeen sheegi waayeen in ay dhacday inuu asaga iga waday qarashaadka ilaa India iyo waxaas oo dhan daawadeyda asaga dabarayay khayr Allah siiyo adeerka kii Kenya noo sheekeynaysa ma mid kale waa kii Kenya kaga sheekeynay si fiican marka gabadhii aad Kenya ugu tagteen maqaayada saarneedeen balqasad xaq nooga wad gabadha waxaan ugu tagnay India markaan ugu tagnay waxaa dhacday gabadha gurigeedan ku degnay
maxaa la yiraahdaa meeshaasaan deganeyn. Marka waxaa dhacday gabadha maqaayadna way lahayd, maqaayadaasaan cuntada ka cunaynay. Isbitaalka iyo daawada waxa dhan waxa waaye waa kulli adeeraa naga warqabay oo waa ii socota waxayga. Marka niyahow maxaa la yiri qofka maaragtay markuu ehelkaada iyo hooyada iyo aabaha wax kaaga roon male, laakiin aniga maadaama xanuunka daayirnimadeedii i haleelay, nin jamhadeynaya aan ahay oo dadaalayay. Ninkaas adeerana waxa waaye garab istaag aad weyn u ii qabtay. Marka waxaa dhacday maxaa la yiraahdaa gabadhaas niyahow maalin maalmaha ka mid ah bini'aadanku waa isqabtaa inaan isqabanay. dee nin aqligayga sanadba sanadka ka dambeeyana dee aqliga ninka ragga u siyaada. Marka waxaa dhacday in gabadhii niyahow oo maxaa la yiraahdaa dhakhtarkii daawadii waqtiga uu ii waday ayadoo waqtigeedii la gaaray in la ii gabagabeeyo oo la isku dayo in wadankii Soomaaliya dib la iigu soo celiyo. Alaan dhakhtarku wuxuu ku advice gareeyay inaad daawada ku qaadato Hindiya. oo daawadii ii socoto. Marka gabadhii aan isqabanay yarkii walaalkay ahaana maadaama loo baahnayn oo transplant iyo wixii galaynin kaliya bedelis oo sakali ii saareen. Qorshaha walaalka isku soo raacdan waxay ahayd lacala hadii la yiraahdo kalidan waa bedel inuu kali ku siiyo. Marka maadaama dhakhtarkii uu markii la yiri daawooyinka sanadka waa idin dhamaadeen looma baahno kali in la bedelo sanad kale oo daawo idin sii. walaalkaan sidaas ku noqday. Si fiican. Marka walaalkay sidii uu iga tagay aniga meeshiiniyo ku cidloobay. de bini'aadankuna waa isqabtaan. Marka gabadhii adiga xoogaay xurgufiye iyo waxbaana dhaxmartay. Aniga xataa iguma soo dhicin inaan adeerkay dib u waco aan dhaho adeerow saas ay haysato. de nin aqli badanna waa ahaa laakiin nin aad u daayar aan ahay. Marka waxaa dhacday adiga in Soomaaliya dib la iigu soo celi doono oo la ii gabagabeeyo. Soomaaliya marka intaan imaanin adeer inuu ila soo hadla jirta mar oo yiraahday haddii Soomaaliya timaado waxaa ku soo laabanaysaa Nairobi Kenya xaafadeeda ogow. Marka waxaa dhacday inaan safarkayga sidii ku soo baxo Muqdisho ka soo dago. Muqdisho markaan imaaday oo muddo aan joogay oo aan isleeyahay oo hadda adeer waxa waaye wuxuu ku dhigi rabaa kale Kenya imaaw. niyahow Muqdisho yaa ku joogo markaas wiilka kula dhashay marka laga reebo. wiilkii ila dhashtay Muqdisho intaana imaanba asaga waa ka sii dago wuxuu u laabtay baadiyihiisii. marka laakiin Muqdisho waa eedayaal joogo eedadeeyo qeyr Allah isiiyo waxa intaan Soomaaliya joogay oo istaalada aan rafaadka ku jiray oo istaalada dhakhtar walba la igeenay eedadii ila daala dhaceeda joogto qeyr Allah isiiyo iyo eheladii oo dhan eedayaal iyo adeeryaalba waa joogaan. Ma sha Allah. Marka waxaa dhacday markii Muqdisho aan imaaday oo aan isleeyahay markaan Kenyadaadii u laabanay ba nin imla adeer aan hayaa wuxuu sameeyay inuu adeerkii la hadlo oo yiraahdo ninkan maadaama daawo hal sana oo wato waxaan geynaa college. marka waxaa dhacday aniga waa college iyo waxaas waxba kama fahansaneen. marka waxaa dhacday college-kii xafiis ay meel bakaaraha ku lahaayeen in yarkii imla adeerka aan ahayn oo barnaamijka adeer la hadlay inuu meeshii igeeyo. marka niyow maadaama aan u da'yaray waxaan ku xasuustaa waxay tahay college-ka waxaa ku dhex yaalo boorarka waa taqaanaa la buufiyo oo yacni meeshii garoon banooni oo qurxoon oo roog ah saro qurxoon arano meelahan Yurub ay ka soo degsadeen. exactly meesha saanay u egtahay la igu yiri. meesha oo lagu geey rabo saanay u egtahay college-ka subaxdii waa soo kacaysaa iskuulkaada aadee dugsigaada aadee sariiraha isa saaran oo maaragtay meelaha shelterka ku jiro. wuu kala duwan yahay college-ka kuwa waxaa jiro oo xanaano oo boarding ah oo la seexdo dadka lagu haayo. midna waa just iskuulada caadiga subaxii la soo kacay la aada duhurkii laga soo baxaa. marka qaab nooc ah college-ka college-ka la igey doono wuxuu ahaa mid boarding ah oo sariirihiisa iyo wixiisa oo dhan gadaal ay yaalaan. qaybta horeetana ay tahay iskuuladii iyo dugsiyadii iyo ay yihiin. okay si fiican si fiican.
marka waxaa dhacday in yacni waxaa lagu diraa xalaala wixii meesha ku dhiga lahayd buugaagtii oo kale qalimaantii ayakaa kuu sheegaya kuwa xafiiska dharkii nuucii oo lagu soo toli lahay surweel iyo shaatiga waxaa lagu dhejinaa number waa sida xabsiyada oo kale numberaa lagu dhejinaa 1300 iyo intaas marka waxaa dhacday wixii oo dhan markii la isugu soo habeeyey baa kolleejkii la ii wado kolleejkana magaalada Muqdisho aad uga fogaa oo wuxuu ku yaalay Garas Valley kadib waxaa dhacay boardingkiisaan bil markaan dhiganayay waxaa ii yimid ninka ibn adeerka aan ahayn marka waxaan ku irinay waxaan iga saar meeshaan iga saar waa ku dhibtooday walaalow hayuu yiri waa iga tagay bishii labaad markuu iga maqnaa bishii labaad marka meesha kaneecay lahayd kaneecadii ay cuntay waxaa ugu dhacday malaria marka subaxdii wixii iskuulkooda aadayan wixii dugsiga aadayan aniga boardingka baan dhalinyarada waxaan dhihi jiray maxaa la yiraahdaa joodariga ii soo qaada meel yaroo hoos ahayd ii dhiga marka meeshaas la ii dhigaa maalintii oo dhan wax kuu imaanaya male nin meesha waxaa joogay la leeyahay dhakhtar waaye laakiin kaasoo dhakhtar ma ahayn qofka wuxuu siinaa hal xabo qalajiye ah iyo hal xabo bristimola ani marka qalajiyahan tuuri jiray bristimolkaan laqa jiray because qandhadii ay iga tan badatay marka ninkii waa la wacay ninkii meesha mas'uulka ka ah inta la hadlay waxaan ku dhahay niyow meeshaan hadaa ku dhinto adinka ka mas'uula ninkii hal ii waco ninkii hal ii waco wuxuu yiri ninkii waa isyeelyeelaa xanuun ma haye hal laga leexdo in ninkii markii wicitaankii la waco yiri ninkii iga mas'uulka maadaama meesha uu keenay uu leeyahay ninkii waa ma xanuunsanay waa iska ciyaara markii dambe ninkii mas'uulka meesha ka ahaa wuxuu yiri yaan kale to ku waca sheego maadaama ninkan uu si iimaanayn waxaan sheegay aad marka u jiratay oo yarkii ku keenay walaalka la wacay waa la waayay macnaha wuxuu u malayaabay inaan yeelayo meesha maadaama bil ka hor aan ku iriniyo meesha iga saar wuxuu u haystaa inaan maxaa la yiraahdaa wali iga saartii aan wado marka eedadii oo qeyr Allah siiyay horena aan kugu sheegay markii magaalada la keenay istaalada geenayday alla wacayo waxa la yiri ninkii waa xanuunsan yahay u imaw wixii tiri aniga waxaan deganahay Wardhiigleyaan deganahay meesha joogtiina waa Garas Valley ma imaa karo laakiin bajaaj la soo saaro sidiina bajaaj la ii saaray oo la ii geeyay gurigeeda markii la ii geeyana yacni in farmashiyaha ugu dhawaaya la ii geeyo oo malaariyadii la iga baara kadibna la iga helo BF to maskaxda BF tina yacni cirbadeedii markii la igu bilaabay aanba bilaababa sas iyo orod iyo in la iga qabta xataa ay tagtay marka kadib waxaa dhacday daawadeedii waxaan qaadanayay 3 bilood malaariyaduna waxay leedahay afqaraar iyo abateed la'aan iyo cirbadaheedii waxeeda markaan dhameystay ninkii ibn adeerka aan inuu soo yiraahday kolleejka ma ku laabay aan iraado kolleejkaas maxaliya kuma uma socdo mar dambe uma socdo marka waxay noqotay in daawadeedii banaankaas aan ku sii qaadanayay magaalka iyo guriga eedadeyna aan iska joogo yacni markaasna maxaa la yiraahdaa in adeerkay kaleeto magaalada Muqdisho jooga aan kulanno oo ay dhacday ugu yiri maadaama niyo Hindiya ka timido daawo badanna aan qaadatay waa inaad maxaa la yiraahdaa baadiye aada oo soo qaras bixidaho geel caana geel aa soo cabtaa waa markaan kolleejka ka soo baxay sheekada soo dhan marka waxaa dhacday inaan baawur raaco baadiye waxaa dhacday markaan tagay in hooyo waqti badan aan arkin iyo cidii iyo xoolihii aan u tago halkaas markaan tagana yacni hooyo in maxaa la yiraahdaa aan u tago عشان أدير مركو كلية بعديتك هويا بجوكتو هويا جوكتو سفعان يا عرورتي إلى دلتي يا ويلشي وماشي مركو أصل مركا أصل وماشي هذا كسب بلعبته ها وماشي كسب بلعبتي سفعان دد مدهور سو كان الدنبيدنا وان هنا محل إرادة مدابة أنا إسبيتالة إيو لوف إيو عن صومري هويا دو تكتمر هويا أتجي مركا واحد على هويو أنا taladii adeerna wato ahayd soo qaras bixi in hooyo caana ari ii listo
caanihi ariga meeshii baaquli caano ariga aan cabo kulul calooshii dhaqaaqi weydo haddana baaquli labaad inta la xarfiyey aan cabay markaasna ay noqotay yacni araggii inuu tartiib u tago aragga lagaga imaaday araggaa la iga imaaday maadaama caanaha ariga waa very protein waa caanaha ariga protein badan ay leeyihiin marka waxaa dhacday in yacni hooyo aan la hadlo aan labadeena isla hadalno aan dhaho hooyo waxa waa araggayga ash ma aha ayadiina ay dareentay in barnaamijka xanuunkii soo laabtay keliyaha meeqaad joogtaa markaas aad dareemaysid araggaaga inuu xaaladaas ay soo wajahday meeqaad joogtaa markaas waa 24 maalin waa bil wax ka yar intaasna caanahaas iyo caanahaas ad cabays caanahaas wax kale uma aadan dhawaanin maxaa la yiraahdaa dee nin dhanoo ciddii imaadana waa ahaye waxaana la ii qalay oo dhaylo ah oo hilibkiisaan iska cunaayay waa lagugu baahninahay dee duhurkiina maxaa la yiraahdaa baadiyihiina dee waa xilli roobaad waayo miro walba iskaga yaalo wax walbaan cunaaya oo miro ah marka waxaa dhacday in 24 maalin gudaheed hooyo xoolo ii soo wado tuuladii i keento kadibna yacni tuuladii markay i keentay xoolihii ii gadaya abtigayo meesha joogay igala dardaarantay waxay dhahday bal wiilka diyaarad hala saaro maadaama uusan gaari qabo karin kadibna waxaa dhacday in meeshii koomo aan ku galo okay markaas marka koomada ka hor markaas marka ariga waxaa loo gadaa calsha in lagugu safriyo in la ii safriyo reemiyigu calsha maadaama kaash is haysan qof markii arrin soo wajahdo xoolaha loo gadaa lacagtaasaa lagu safriyaa safarkaas marka matee ugu socotaa safarkaas waxaan ugu socdaa muqdisho oo aan ka imaaday inaan ugu laabto dib aan ugu laabto maadaama anoo intaan baadiyaha joogo oo xanuunkan soo wajaha aragga ah aragga waxaa waaye dee kelyahana waa keeni karaan marka waxaa dhacday in waa inay ku keentay meeshii tuulada ahayd oo arigii meesha lagu gadaayo si fiican marka ma aysan noqon abti inuu isaaro diyaarad meeshii aan koomo ku galay waxay noqotay in aabba la waco aabbe igu yimaado meeshii tuuladii markaasna waxay noqonaysaa aabbe inuu diyaarad soo saari doono okay si fiican marka koomada aad gelaysid ma indhahaad u gelaya mase xanuunkaaga keliyaha maya xanuunkii iga tanbatay xanuuna ay qabtay saa'id ah waa bararay yacni aragga markii la iga soo wajahay waxaa dhacday in qandho haddana igu darsanto qandho iyo bog xanuun iyo lalabo matag waxaasoo dhan maalmihii u horeydana markii tuulada la keenay xanuunka hadba maalinta ka darsan waa igu sii siyaadayay marka heerkan ugu dambeeyey waxaa waaye heerkii koomahan galay oo miirkayga maba jooginba waxaa dhacday aabbe inuu isoo wado marka xilliga xataa aabbe uu yimid war kama hayo asagaa isoo qaaday kadib dib uu iiga sheekay doonaa in muqdisho uu keeno eelaboorkana markii la iga soo dejiyo xataa guri xataa la ima geynin toos waxaa la ii geeyey staldigferna markii la ii geeyey baaritaano igu sameeyeen waxay ogaadeen labadeeda keliyood inay fariisteen oo aan u baahanahay dhaqmo ama miiritaan marka waxay noqotay in lugta bidix ajirka la iga duleeliyo halkaasna dhaqmadii la iiga sameeyo ayna noqon doonto inaan dhaqmadii dhowr maalin markii la igu sameeyo aan soo naaxo markaasna welina araggii weli wax aan arki karin oo laakiin qofkii ila hadlo aan fahmi karo qofku yahay marka isku kay sheegana aan fahmi karo araggina weli shucaac uu ku furan yahay dhaqmadana waxa waaye dee mar haddaa bilowdo waa sidaa ku bilowday marka waxaa jiray nin nuur la yiraaho oo ibn adeer aan ahayn oo aad igu dhawaay oo idhahay maxaa la dhaqmadan waa dhamaanaysaa istaji dee xaaladda igu dhacdana aadan ula yaabanayo waan nin iska oynayaan ahay xaalad situation xunaan ku jiray dadkeena Soomaaliyeedna waxa waa ereyada xanafta leh iska adeegsadaan oo maadaama keliyihii aan beelay waxay dhahayeen salaad keliyihii hadduu beelo meena la'aan ku darsaday waa hadallada ugu xanuunka badan oo aan soo xasuusto calashaan dadkii ku soo booqanay hadallada ugu xanuunka badnaa oo aan maqlayo kuwaas ay kamid ahaayeen mideeda labaadna waxay tahay maadaama istaalka digfer aan ku jiro qayb waxaa jirto dhakhtarka indhaha in la ii geeyo dhakhtarka indhaha markii la ii geeyo oo indhahayga check up ku sameeyana oo yiraahdo yacni ninkan labadiisa indhood waa gubteen dib dambana waxba uma arki doono
xaaladii igu xanuunka badneed oo labaad ee tii koowaad oo ahayd inay kelyahayga fariisteen iyo tii labaad oo ah ninkan araggiisa dib uma arki doono dadkiina ay meeshan leeyihiin yacni hadduu kelyaha beelay ma indhihii ku darsaday marka waxay noqotay in sidii isbitaalka la iiga saaro oo discharge la igu sameeyo kadibna isbuucii 2 mar aan imaanayay dhaqitaanka sax labadii premiums how often sida loo sameeyaa dhaqitaanka waa isbuucii 2 maalin yacni meelahan dibadaha 3 maalina si toos ah dadka loogu sameeyaa isbuucii 3 maalin laakiin Soomaaliya dadka qarashka ma awoodaan halkii mar $35 ee makaan ku ogaa 2018 ka hadlaa sidee lagu dhaqaa weegi meeqa mar aad tagi jirtay weegi 2 mar ahayd aan imagine maalina 3 maalina maqnaana maalina 2 mar xaaladaad indhahana markaas halkii maray xaaladeedu indhaha waxay marayday araggii sidii oo ahaa laakiin waxay noqon doontaa keenaya isbitaalka marka adigoo xaalkaaga indhaha saas ahay family ku caawinaya isbitaalka ku keenaya si kaada laga dhaqo isbitaalka la keenayay maxaa la yiraahdaa dhaqmadii la ii sameynaa guriga la ugu celinaa xaalad adag ay ahayd wixiina experience kama haysan qof hore u soo maro xataa wixii iga sheekeena ma haysan wixii oo dhan waa igu cusbaayeen marka waxay noqon doontaa marka dhaqmadii maadaama ay wax regular tahay oo soconayso in dhakhtar indhaha la raadiyo la ii geeyo dhakhtar la yiraahdo Dr. Shiine oo indhaha ku fiican Soomaaliya dhakhtarkaas oo yacni mar goboladu aadaa marna magaalada Muqdisho joogaa dhakhtarkii oo 400 qofood sugayso in la ii geeyo dadkii la ii baryo la yiraahdo ninkan kelyuhu la yahay dhakhtarkan u baahan yahay xaalad degdeg ku jira dadkii la ii codsado ugu hormariyo calashaan dadkii marka waa ii codeeyeen qeyr Allah siiyo dhakhtarkii la ii geliyay dhakhtarkii aan la fariistay xaaladeedu ku iga wareystay Dr. Shiine wuxuu yiri ninkan maxaa loo sameeyaa marka waxaa la yiri in ninkan kelyaha laga dhaqaa keliya dhaqiso bilaabo hadda dhow marka Dr. Shiine wuxuu yiri ninkan kelyaha iyo indhaha waa isku xiran yihiin waxa keenana waxay tahay waxa waaye waa kelyaha maadaama ay ka fariisteen laakiin se maxaa la yiraahdaa way soo fiicnaanayaan wuxuu ii diray computer indhaha la saaro waliba qeyr Allah siiyo halkaas oo uga mahad celinaa Dr. Shiine wuu ii saxiixa wuxuu yiri wax lacag laga maro computerku waa $50 ma sha Allah wuxuu yiri free ha lagu soo saaro computerka la soo saaray jawaabtii loo soo celiyay ninka indhiisa waxa uu qabaan uu yiri oo kiyali ugu horeeyo aan qaatana asaga ii qoray oo kiyalaan ha kashto araggiisana tartiib u soo laabanaa dhaqmadiisana ha loo wado sidii araggayga ay soo laabta anoo wax gooja iyo waxba isticmaalin okay maadaama marka saa ii sheegtay isbitaalka waad ku noqonaysay lacag oo aha markasta aad ku noqotid sidee carshan sidee u dabari jirteen halkaas wallahi waa mid isweydiin mudan yacni hota wixii eelka ah waa la hadlayo waxa la lahaayay ninkii dhaqmo u baahan yahay maalin walba $35 walaas transport u baahan yahay meeshii in mooto loo raaco waa loogana soo laabto taas maxaa la yiraahdaa waxa dabarayay dadka ehelka ah mar aaba wuxuu la hadlayay cidii oo baadiyo in xoolo ay soo gadaan saasa lagu dabarayay marmar xataa intaas intay dhamaato hadana dadkeena Soomaaliyeed waxa waa bogto badan iyo baahi badan waa la isku nacaa dadku waa ku dhibsanayaan heer waxa la gaaray salaada xanuunsan markii la yiraahdo dadku qaar ay dhahan monoliya marka waa sheekooyin xanuun badan ay ahayd marmar xataa waxa jirtay inaan istal digfeer xafiiska cabashada aan ku cabaado dhowr xataa hal bilo free hal isiiyo sidaasna la igu sii jiray marka ilaa goorma xaaladaas ku jirta sidees uga baxday waxaan xaaladaas waxaan ku jiray 2018 ilaa 2019 2 sano ku jiray markii dambana maxaa la yiraahdaa maadaama dhaqmadeeda aan iska sii watay in ay maxaa la yiraahdaa xataa aan u dhamaaday dhaqmada wax saalan maaha oo Afrika ku galay waliba waxa jiro yacni qofka markuu dhaqmada galay mashiinka markii lagu xiro waxa jiro inuu dhiigiisa dhamaanayo oo maxaa la yiraahdaa dhiiga markuu ka dhamaadana u baahan dhiig kale in lagu shubo dhiiga kalena waa in lacag dhiibtaa
marka ma awoodin xataa marmarka qaar inaan lacagtaas dhiibo waxay noqonayday maxaa la yiraahdaa inaan dadkii la hadlo aan dhiig la ii gado oo sidaas dhiig la iigu gado la iigu shubo cirbado kale to waxaa jiro oo dhiiga badiyo maxaa la yiraahdaa waxa lagu dhex daraa inta ay dhaqmadaada socoto mashiinka dhiiga wareejinayo lagu dhex daraayo ayakana qaali $60 waa 4 xabo miya oo cirbadood marka xaalad adag ay ahayd waxa dhacday marka familkii yaa isla hadlay waxa la go'aansaday mar labaad in wadanka dib la eega amba bixiyo oo xaalad caafimaad hadana la ila raadiyo taasna waxay noqon doontaa inaan hadana mar labaad India ku laabano oo India aan tagno marka waxa dhacday inaan India tagno markaasna waxa raaci doono maxaa la yiraahdaa aabahey markuu raaco waxay noqonaysaa halkaas markaan tagno in markaas maadaama kaliya dhaqitaankii ii socdo in markaan wixii waa iska cad yihiin oo transplant u baahanaa ama kali in la ii geliyo waxaa joogtay Muqdisho family waxay go'aansadeen in mar kale lagu celiyo India aabana kula socdo aaba ila socdo qorshihiina muxuu yahay markaas qorsheena markaan waa bacad yahaba markii hore to kala ma aha sababtoo markaan nin 2 sano dhaqmaa soo qaataan ahay kaliyihiisina ay si shaqeynaynin una baahan in kali loo geliyo marka de aaba ila socdo qof kale inta la waco lama dhihi karo asna passport iyo hadda kadib howlaha soo sameeyo ha imaado markaana ninay ka caddo waxa ahay 2 sano mashiin inta si loogu soo waday dhamaaday oo basuca karin la fahiga qaylinayo marka aaba go'aan wuxuu ku gaaray ama iskula gaarteen in Hindi loo geeyo oo kaliya ku bixiyo asaga qorshahaas waa aniga hal baaro yiri ana u saarayo maxaa la yiraahdaa caafimaad qofkan waxa waa haduu caafimaad qabo oo waxaanuna oo shaqeyn kaliya waa laga saari karaa meeqa jiro markaas aabahey waa 60kii kulli waa galay markaas waa 2019 November ahayd marka waxa dhacday asaga la baaray waa saari kartaa hal waana ismaaj gareynaysin waa isqaadi kartiin oo isku dhiig waatiin marka dhaqaatiirta saas indhaha dhaqaatiirtii hore oo xaalkaaga la socotay miyaa ma soo waa istaal cusub waa si fiican marka waxay noqotay in yacni baaritaanadii aaba lagu sameeyo kadibna aan u diyaar garownaa qaliinkana waxaa qayb ka qaatay adeerkaygii horeeto Hindiya igeenayay qayb weyn uu ka qaatay qarash ahaan calashaan iyo habaryartay qeyr Allah siiyo oo ayadana la hadashay abtiyaashay oo wixii oo dhan la isku dardaray marka lacagtii halkaas lagu soo dhameystiray kadibna waxay noqotay aniga aaba inaan qaliinkii galno alxamdulillah qaliinkii oo maxaa la yiraahdaa 3 saacadood qaatay waan galnay oo aaba kalidiisa la ii bixiyay anigina kalidiya sidii la igu galiyay maxaa la yiraahdaa kalida habeenkii qalitaanka markii la sameeyana subaxdeedii socda lagu bilaabaa okay marka qaliinkii amartay qaliinka marka marta marka maadaama in lagu socodsi ay tahay maxaa kugu xiran qalab ahaan meeshii waa la qalay ma la shuruuteeyo just qof caadi ma tahay dhaawacna waa to meeshii way qalan tahay marka calashaan sidee calashaan meeshii yani la qalay kuwa ay dabooleen oo faashada iyo sharootooyina ku daboolan meel yar oo ka koreedo oo duleel ahna waxay ugu tala galeen tuba ku jirto ruteejo oo dhiiga soo saareedo tubadaas oo meeshii yani ay qaleen kulay dhiig haduu ka imaado inay banaanka u soo bixido afka banaanka tubadana waxa waa caag yar oo kuusan oo dhiig oo ku shumaya ku yaalo si fiican marka waxa soo dhan waa kaliya korkeeda lagu sharootay si fiican marka socodkaas la ii wadaa maalintii waa la socodsiina habeenkii waa la socodsiina waxay fiirinayaan inay kilidii iyo jirkii hore iskala qabsadeen daawooyin way ku siinayaan daawooyinkaas ay ku siinayaan waxay la dagaalamayaan awoodda jirkaada sababtoo waxay diidayaan inay kilidii jirkii weerarto marka daawadiina waa kugu wadayaan sidii waxa dhacday istaalka waxaan ku jiray 15 maalin aan ku jiray istaalka aabana uu ku jiraa markaas aabe 7 maalin oo ku jiray oo asaga horaaba laga saaray hore ka fiicnaaday
laakiin ninka u baahan in yacni wixii isla socdaan la hubiyo waa aniga 15 maalin ku jira istaalkii daawooyinkii wixii maxaa la yiraahdaa saan u qaadanayay marka daawooyin waxaa jiro noloshaada inta ka dhiman aa qaadanaysid kelida markii lagu geliyo oo weligaa kuu soconayo kiniiniyaal ah inaad qaadatid waqtiyaashoodana aa xifdidid intaas uun baa lagaa rabaa 15 maalin kadibna istaalka waa la iga soo saaro oo gurigaa la i keenay marka isbitaalka ku soo fasaxeen oo fasaxanta ma lagu yiri mise inaad joogto ay kula socdaan ay tahay maya 2 bilood oo kale taa joogaysaa oo xaaladaada ay hubinayaan wixii inay isla sii qabsadeen oo si fiican u shaqeynayaan marmarka qaarna waxaa jirto qofka kelida markii loo geliyo xataa inay shaqay weydo laakiin aniga alxamdulillah maadaama aabahey oo ahayo qof isku dhiignahay oo haddana ii dhowo dee DNA-giisii aan ka beermay in wixii hore iiga shaqeeyaanba alxamdulillah kadibna 2 bilood markay dhammaatay aan wadankii dib ugu soo laabto anoo daawooyinkaygii waxaygii wato salaadoo muqdishood imaatay daawooyinkii meeshaad ku qaadanays kadib maxaa dhacay daawooyinka meesha saan ugu qaadanayay waxaa dhacday daawooyinka maadaama wadanka laga helayn in ama hindiya la iga keeno oo aan ka dalbadaa 3 biloodba mar ama turkiga aan ka dalbadaa marka xaaladaasna way soo caweydaa haddii daawadii ay ga go'dana waa wareer oo kelidii iyo waxa isweeraraya jirkii sifiican marka waxay noqotay in aan wadankii haddana dib aan uga soo baxo oo aan soo aado turkiga maxaa la yiraahdaa arrinkana waxaa ila qorsheynaya hawareertii qeyr Allah siiyo sidaasna waxay noqotay inaan turkiga ku imaado marka turkiga imaaday turkiga gabar kale oo hawareertii dhashay ay ugu soo dhaweyday maxaa la yiraahdaa meeshaan isla joognay marka waxaa dhacday turkigii marka haddaad timaadidna dee daawadii waa inaad gadataa oo qarashaa loo baahan yahay dee qarashkii iyo wixiina isma bixi karaan marka waxaa dhacday xilligii 2020 koronihii aa igu soo gala anoo turkiga joog marka waxay noqotay yacni meeshii inuu yacni corona igula dhaco oo maadaama difaaca jirkaygina hoos loo dhimaayo kelidiina la rabo jirkayga inay la falgasho intaasoo malaayiinana dee corona waa u dhimanayeen waana ku dhacayay in coronihii igu dhaco oo coronihii markuu igu dhaco ay noqotay in isbitaal aan tago isbitaalkii markaan tagana yacni daawooyinkayga iyo wixayga aan u sharaxo keligayaan ah markaas laakiin yaa kusoo degtoo la joogtaa gabadha waa kusoo degay laakiin gabadha way baxda ayadaa tagtay wadanka way ka tagtay markaan imaaday ee isoo dhaweyday oo muddo aan joogay gabadhii wadanka way isaga tagtay keligaya aha marka corona markuu ku dhaca haa waxay noqotay in yacni isbitaalkii aan tago daawooyinkayga u sheego inay keliya igu jirto aan u sheego marka coronaha dadku soo u hayay aniga iima haynin keliya wuxuu ugu hayay qandho matag iyo waxaas ma jirin qandho uunbaa isaarneed dhaqaatiirtu marka waxay sameeyeen dhalo yaroo waxaa jirta qandho jibin ah oo faleenba ah dhaladaasay isiinayeen midba markay dhamaato isku bedelayeen markii dambe waxay dhaheen intaan ka badan ma sii karno ninkan oo waxay u baqeen kelideyda marka meeshaasaa aniga miyir iigu dambeyda oo waxay noqotay inaan koomo galo oo koomahaas waxaan ku jiro muddo bil ah oo waxba aana kala hayn waxba magaana kala ogeyn marka waxay familiga ma ogyihiin markaas haa hawareertii waa ogtahay oo yar saaxiibo aan ahayn ay la soo hadlayday oo dhehday isbitaalkii tag maxaa la yiraahdaa yarkii soo booqo marka asaga looma ogoleyn ICU-dan ku jiray ninka waxaa la leeyahay way ku jirtaa oo still soo manaaxin asagana intaas waa hawareertii usoo gudbinaya maadaama keliga aad joogtid calsha familiga kor markasta way kala socdeen haa oo arrinkayga waa la ogeysiinaya macalaa ciddii oo baadiyo joogto ninkii faatixada usoo maro waxa waa kooma ku jiraa marka waxaa dhacday halkaas uun in yacni aniga aan koomihii bil kadib aan soo naaxo oo maxaa la yiraahdaa markii ugu horreeyay oo taleefankaygaaba ag yaallaba oo habarirtii aan toos usoo wacay saan ku yiri isbitaalkan iga saar aniga dhan sasaa ku jiray marka waxay noqon doontaa yacni in maxaa la yiraahdaa hooyo idejido kuwii meeshii joogay idejiyaan
marka isbitaalkii markii aan koomaha ka soo baxay warqad cad baa la iila soo baxay waxaa la yidhi aabaha aawo hooyada aawo kuwii kula dhishta aawo kulligoodba waan dilay oo waxaan waa dhinteen sabab macnaha maskaxdeeda maba joogtaba nin kooma ka soo baxay oo shoogsan dadkii oo dhan waa dilay waxaan hooyo ma noolo aabo ma noolo dadkii oo dhan ma noolo markaas la igu yiri lacag intaas oo lacag waaliye sheegteen 50,000 ma ahayd oo dollar ay sheegteen waxay dheen muddo bilahan ku heenay kaliyahaadii hadda waa soo kicinay oo maxaa la yiraahdaa kilidii igu jirtay maadaama uu qalqal galay oo koomana aan ku jiray dhaqmo ii sameeyeen intaan koomaha ku jiray dhaqmo badan ay igu wadeen marka hawartii la wacay waxa la yiri lacagtaas waa in la bixiyaa iyo dadkii jaaliyada Turkiga oo Soomaalida jooga Turkiga safaan marka waxa dhacday dadkii waa ii imaadeen waxa la yiri intaas oo lacag lama bixi karo Turkidana waa qofku waa ka faa'iideysanayaan markuu istaal u galo moogta lacag waali isoo soo dalacanayaan ninkan heesta la yiri ama dubta sidii ay u haayeen istaalkii oo muddo aan ku jiray marka waxa dhacday meeshii ICU-dii la iga soo saaray kilidii waa la badbaadiyay laakiin waa wili qalqala ku jiro oo barar iyo waxba jiro marka waxa dhacday in istaalkii qayb kamid ah oo jiif la jiifiyo markan wixii igu darnaa waxay istaalka markii ICU-da la iga soo saaray koomihii in afkii isku kay dhagaba oo labadii waxa la yiraahdaa waxna aan cuni waay waxna aan cabi waay afkii koolo isku noqday oo dhaqaatiirtu waa yaabeen waxa ay haayo marka waxay sameeyeen inay sanka toosh iyo waxa inta galiyaan kaamirad iyo ay fiiriyaan waxa afkayga isku dhajiyay waa aqoon waayeen markii aqoon waayeen waxa dhacday in afkayga isku dhagan inaan sidii istaalka u jiifo meel sariir ah oo maxaa la yiraahdaa inaan ka soo baxo lama ogola marka anigii hurdadii ay goyde hurdo la'aan igu dhacday nina maalintaas oo dhan iyo ag fadhiyo u wardiyeenayo habeenkii nina u wardiyeenayo qof igu imaanayana male oo ehla oo jooga Turkiga wixii ay markaasna raanahan ku heestaano waxa la yiri ninkaas waxa rabtan ku sameeyay way hayaan saasay ii heestaano maxaa la yiraahdaa lacagtaas iga rabaan anigana lacagtaas waxa qof wax bixi karta ma laha lacag waaliye 50,000 marka waxa dhacday in maxaa la yiraahdaa ay sameeyaan aan soo roonaaday kadibna yani maadaama aan cunto cuneynin inaan codsado in soondal la igeliyo baasha sanka la iska geliyo cuntada la siiyo marka waxa noqotay bahal caanaha siniin gaweyn lagu soo jiidaa baahi markay i qabata halkaas wixii la iga siinaa maadaama afkii oo shaqeynayno oo isku dhagan yahay marka markii dambe waxay dhaheen adresskaadina sii meesha degneed aan ku geenaynay adresskii aan siiyay laakiin adresska ima aysan wadin waxay sameeyeen in baawur la igu qaado maxaa la yiraahdaa stationka la igeeyay sawir la iga qaaday waa sawir laga qaaday sababta lagu geeyay maxay tahay stationka waxa la igeeyay sababtoo ah meeshan dawladda la igeenayo waa in sawirkaas iyo xogteedo dhan la heesto waay marka waxa dhacday meeshii dawladda la igeeyay meeshaas daawadeeda la igu siinayay dhakhtarkeygana la iga geenayay maxaa la yiraahdaa waxa lagu geeyay meel dawladda ay leedahay oo qofkii ku jiro financialkiisa lagu support gareeyo laga bixiyo wax kasta oo baahan si fiican marka waxa dhacday in maxaa la yiraahdaa muddo hal sano ah meeshaas ku jiro familiga iyo waa kugu ogaayeen reerka kugu ogaayeen waa ugu ogaayeen marka kiliyana waxa u baahan tahay meeshaas si lagaaga saaro qof familkaada inuu imaado saxiix dhiibo meeshana ka saaro lacagtii marka isbitaalka kugu lahaayeen marka lacagtii waa la ii cafiyaba oo lacagtii sidaas la iigu cafiyay markii meeshan la keenay si fiican daawo hor iyo dhaqaatiirna waa igeenayeen marka waxay noqotay meeshii sidaan banaanka uga soo baxayay inaan habrirtay la hadlo aan ku dhaha meesha in la iga saaraan rabaa meeshana naxariis laguguma hayo waxay tahay hal sano qofka markuu ku jiro wadankaada ku celinayaan oo waa ku tarxiilayaan yar saaxiibo aan nahay
baan la hadlayo maxaa la yiraahdaa waxaan ku dhahay meesha si ehelnimo ah iga saar yarkiya baa ii yimid maxaa isku tihiin abtigeeya dhalaan ku iri maxaa la yiraahdaa saxiixuu dhiibay meeshaa sidii la iiga saaray markaan soo baxay maadaama meeshii hal sano wax walbo maxaa la yiraahdaa daawada iyo dhakhtarka iga bixinayeen markaan ka soo baxay wax walba waxa waa anay dusha iga soo koreen maadaama markii horeetana habaryar ay lacagta bixinayda intaan istaalka gelin koronaha iyo ugu dhicin markaan waxay noqonaysaa wax walba inay aniga dusheeda soo koreen haddana dhaqaale xumo ay iska jirto oo korona oo jiray daawooyinkayga kelyahana wax laga bixi kara aysa ahayn oo qaali ay ahaayeen daawada kelyaha marka waxay noqotay in waxaa ka wadaa marka meeshaas maadaama familiga ay ku caawinayeen xilligii hore corona oo imaaday hal sano dowladda Turkiga ay ku saacidayeen banaanka marka u soo baxday alshan familiga ku caawinay xilligii hore maadaama corona oo dhac dhaqaale xumo adduunka ay ka dhacday alshan ma jirin qof ku caawiyo kuma caawi karin alshan ma jirin marka waxaa dhacday wiil aan asxaab ahayn oo aan isku dhaweyn in ay gabaray is yaqaanaan ay asxaab ahaayeen inuu arrinkayga gaarsiiyo oo doonin waxaa jira halkan joogo oo dhibaateysan oo arrinkaas haysto gabadhii ay la soo xiriirtay waxay tiri aba wiilkaas ay ka sheegay xaaladaadan waa la socdaa waxaan rabaa inaan garab ku siiyo oo garab aan ku noqdo soo dhawaa waan ku dhahay waxay tiri meel Qubrus la yiraahdo inaan ku geeyaan rabaa oo daawadaada iyo caafimaadkaada wuxuu dhan halkaas aad ka helaysid gabadha halkay joogtaa markaas gabadha waxay joogtaa America si fiican marka gabadhii wiilka igu soo xirtay wiilkii aan isla hadalnay wiilkii wixii oo dhan Qubrus uu ii soo dhameeyay aniga sidii aan ku soo dhoofay Istanbul aan ka soo baxay Qubrus aan imaaday Qubrus marka waa laba geesood waaye geesna waa Turkiga geesna waa geeska Greek xiga geeska Turkiga xigaan ka soo degay dhowr maalin kadibna waxaan u gudbay qaybta Yurubta oo Greek xigta halkaasaan tagay maxaa la yiraahdaa kaamaan galay iyay kugu xirtay yaa intaas oo dhan kula socda marka intaas wax ila socda ma laha waa keligay laakiin yarkii ay la hadashay oo maxaa la yiraahdaa barnaamijka ii waday baa kor iga hagaaya si fiican iyo gabadhii gabadhiina waa ila soo hadlee marka waxaa dhacday in qaybtii kale markaan u gudbay aan kaam galay oo kaamkii halkaasaan iska dhiibay xaaladeydana waan u sheegay in yacni kelyaha aan la ahay isla markiina waxa waaye kaamka 3 maalin camal aan ku jiray waa la iga saaray waxaa la igeeyay meel shelter ah oo maxaa la yiraahdaa geeska Greek ahaa meel shelter oo rag kaleeto Soomaali iyo isugu jiraan isbitaalka la igeeyay baaritaanada la igu sameeyay kelideedana waxa marba marka ka dambeys hoos u sii socoto markaas oo waxa waaye inay fariisatay baa halis u saarneed Cyprus waxaan joogay sanad iyo bilooyin aan joogay marka waxaa dhacday habeenada ka mid ah inuu sanka dhiig iga imaado isbitaal ila cararo isbitaalka la igeeyay isbitaalka markii la igeeyay baaritaano la igu sameeyay lana ogaaday inay kelideyda fariiso rabto kelideyda fariiso rabtana waxa calaamadaheeda lagu ogaadaa waxay tahay waan kaadinayay laakiin kaadida iga soo bixida waxay ahayd intii cabirkeeda la rabo ma aysan ahayn wax ka yaray ahayd macnaha qaarka kale kugu noqonayeen qaarka kale jirkeyga ku socdeen sababtoo ah musqusha waxaa la ii dhigay caag cabir leh waxay ogaanayeen mar walba intaan kaadinayo marka dhaqaatiirta waa ii imaadeen aniga xataa maalintaas aadan yani ula yaabay qolkoo dhan dhaqaatiira ii soo buuxsantay qofka in laga nixiyo lama ogola waxaa lagu leeyahay xaaladeydii oo dhan situationkayga way haayaan mugta waqtigii kelida la ii soo geliyay wixii oo dhan la ii dul maray waa ognahay salaad in keli lagu soo geliyay aabaha ku siiyay corona kugu dhacay intaas oo dhan aa soo martay laakiin maanta waxaan kuu sheegaynaa inaa ogolaato 2 saaco u horeeyay dhaqmada ah inaa ogolaato aa lagu leeyahay keliyahaada fariistay dhakhtarka si official ku dhima wuxuu ku leeyahay dhaqmada 2 saaco u horeeyay waa inaa ogolaataa mar walba qofka dhaqmo ku cusub yahana 2 saacadood looga bilaabaa aniga marka waa iska ooyina jabsaday oo waa qoomamay sabab maxaa ka ooysi waxa iga ooysiya waxay tahay niyahow kelidii aabaha ku bixiyay aabahana waa dhaafiday adigiina waa ku dhaaftay
علشان هذا الكاس يكون هايين أو حاضر أنت هذه كليدة إني فريسة تمام ها waaba dareemaba because dhakhtarka markuu yiri 2 saac oo u horreeyda maanta qaadanay dhaqmada waa official ay noqonaysaa si toos ah u bilaabay waay كوس مرحلة dhaqmada hore u soo martay experience oo lahayd experience-geedan haystay marka dhaqaatiirtii sida markay dhaheen waa ooy aniga waana qoomameeyay aabahana waa dhaafiday adigina waa ku dhaaftay laakiin isla markii ilaahay aan u laabto waxaan dhahay alxamdulillah ilaahay yaa shalo ku siiyay maantana ilaahay yaa kaa qaatay birina waa heli doontaa insha Allah marka waxaa dhacday sidii aan 2 saac oo u horreeyay dhaqmadii aan sidii ku bilaabay waxay noqotay marka dhaqmadii in isbuucii lagu yiraahdo 3 maalin waa inaan istaalka imaadaa shelterkeygana dib la igu soo celiyo istaalka la iga soo saaro sidaas ay noqotay markaas labada kilib marka waa kilida hore eberka heedi tii aabe labadaba waa wada fadhiistay waa finish ha maxaa dhacay marka kadib waxaa dhacay arrimo kale oo waxaa jiray dacwad ku saabsan oo habartay ay ii xareeday marka waxaa dhacday inaan arrimihii dib ugu laabto عشان xilligii Cyprus joogtay oo shelterka iyo xaaladaha caafimaad ku jirta waxaa jiray leen habarta ay ku xareys ha marka waxaa dhacday in wadanka Ingiriiska London ha oo hadda aan ku suganahay in habar dib ula xiriiro arrimihii dib loo furfuro kadibna dacwadii iyo wixii la sameeyo oo maxaa la yiraahdaa visa la ii dalbo kadibna arrinkii muddo 8 bilood ay ugu qaadatay 8 bilood kadibna yani accept li soo visa-ga ii soo baxo sidaasna aan ku imaado wadanka Ingiriiska gaar ahaan caasimadiisa London okay salaado Ingiriiska imaatay qaasata London caafimaad ahaan maxaa iska bedelay caafimaad ahaanta waxaa iska bedelay inaan dhaqaatiirteeda la hadlo kadibna aan u sheega maxaa la yiraahdaa inaan u baahanahay kili sugashada in la igeliyo listiga maadaama caafimaadka wadankan uu free yahay kaliya ka dalbad kaliya ka dalbaday maadaama caafimaadka wadankan uu free yahay ayakeena waxa waaye maxaa la yiraahdaa way iga ogolaadeen waiting list la igeliyay waiting list alshan waxa la dhahaa wadankan qofkan fahansanin waa la kala horeeyaa qofku ka horeeyo uu sugaa marka in la helayo shaygaas lama ogo iyo xilliga la helayna kuma sheegi karaan marka adiga nasiibkaaga waa okay adiga nasiibkaada waaye haddii rabto 10 sano 5 sano ay qaadan kartaa marka anigana waxa waaye maadaama 5 sano dhaqmo aan soo waday inaan u adkeyso waaye xanuunkeeda dhaqmada waana wax xanuun badan oo maxaa la yiraahdaa 2 daqiiqo ama 1 daqiiqo adiga kaadi ay ku uma adkeysan kartid laakiin aniga si aan u soo kaadiyo waxaan u baahanahay inaan isbitaalka tago mashiino la igu xiro marka wixii aan u adkeyso waayay sidaas darteed waxaan maxaa la yiraahdaa furtay TikTok account oo halkaas dadka yani aan ka dhiirigelinayay oo dadka kaliya dhaqista sameeyo oo aniga mashiino ku xiran aniga istaalkii aaday aan soo gudbinayay intaad isbitaalka ku jirtay marka laga soo tago xaaladaha kaliyaha ma jira xaalada caafimaad kale waad kala kulantay xaalada caafimaad waa soo wajaheen oo hadda muddo adiga dhowr bilood ka hor waxaa dhacday in lug la iga qabto lugteeda bidix iska madoobaato ee xanuunto kadibna isbitaalka la iseexiyo taasoo xataa dhacday in waiting listigii hore aan ugu jira la iga saaro markii la iga saarana xanuunkeyga la gara waayo wax allaala wuxuu yahay sababtoo mar walbo xanuunsato waiting listiga waa laga saaraa sababtoo dhow waxaa la diidaa adigoo xanuunsan inay kili soo dhacdo marka waxaa dhacday in حتى dhaqaatiirtii markay xanuunkeyga gara waayaan ay ii qoraan daawo TB عشان bararkii lugtii barartay wixii hayay aqoon waayeen maadaama ay jirnad waiting listigi waa laga saaray kili sugashadii waa laga saaray marka kinin daawooyin kala qalad ay ku qoreen daawada lugta TB ma hayday oo ay ku arkeen mase waa xagaas ma faafaf TB-da negative aan ka ahay laakiin se maadaama ay xanuunkeyga gara waayeen wax baraawo la dhahayo igu adeegsadeen daawadan daawadiina waa ay shaqeeyday oo muddo 6 bilood aan soo qaataba daawo TB lugta oo qaadanaysa maadaama ayaga waxay aad uga shakiyeen oo maleena TB qarsoona jirto iyo mid la arko marka maxaa la yiraahdaa daawadii 6 bilood waa qaatay daawadiina hadda waa ii dhamaatay alxamdulillah marka waxaan arkay TikTok dadka Soomaaliyeed ama community-ga inay aad isku garab siiyaan
anigana taas aan tiktokgeyga kusoo baahiyay yacni inay taas aada garab igu siiyaan si aan mar kaleete nolol kale iyo kili kale aan dib ugu helo oo aan dadkeyga ka codsaday maxaa la yiraahdaa maadaama waiting listigii lagaa saaro hadda keli cid kugu maqan aysan jirin aad communityga Soomaaliya waxaa ka codsatay in nolosha mar kale fursad lagu siiyo si aad keli u hesho si private ah calashaan si fiican maadaama kelida markaa private u dalbanaya lacag tahay sidaas ka wadaa Soomaa okay ku soo marka waxaa dhacday in dadkayga aan Soomaaliyeed inay garab igu siiyaan mar kale nolol kale iyo life kale iyo inaan helo oo keli kale aan u helo inay garab igu siiyaan TikTok ay community-ga dhex gashay community-ga dhex galay dhalinyaro badan iyo dad badan oo magac ku leh TikTok ay ii kaceen barnaamijkeygana ka soo hadleen waxaan la ii qorsheeyay inaan maalin qabsado oo ah 8 November 2025 in yani cimaamad la ii qabto 8 bishan soo socota November marka maxaa la yiraahdaa habeenkaasna la isugu ka imaan doono halkaasna waxa waaye Soomaali weyn oo dhan igu kici doonto mideeda kale tan waxaan furtay GoFundMe waa website yani donation la igu sameynayo linkigiisana de wuxuu saaran yahay baayadeyda TikTok oo King Ujawa dadka kale to Soomaaliya iyo Kenya iyo joogana waxay uga qayb qaadan karaan maxaa la yiraahdaa telefoonaan soo sameeyay oo sida Hormuud oo kale Somtel iyo Somnet dadka Kenya joogana waxaan sameeyay telefoon oo M-Pesa ah oo ayagana ay uga qayb qaadan karaan iyo Salaam Bank intaas buu waan sameeyay okay hadda haddii soo fududaato ilaahay soo fududeeyo oo aad hesho lacagtaas maxaad ku sameynaysaa ashan lacagtaas sideed mataqaanaa ay ku caawi kartaa waa su'aal fiican dadkayga Soomaaliyeed hadday ii kacaan oo maxaa la yiraahdaa limitka aan ugu talagalay maxaa la yiraahdaa processkeyga oo ii hirgalo insha Allah markaas maxaa la yiraahdaa waxaan tababashaysanaa sidii keli kale aan ku heli lahay oo markaas ay noqonayso in maxaa la yiraahdaa arrinkaas aan diiradda saaro insha Allah waxaan rajeynayaa inuu Ilaahay ila garab galo ummadda Soomaaliyeedna waxaan ka codsanayaa inay igu soo duceeyaan inuu Ilaahay ila garab galo okay walaalka Ujawa insha Allah waxaan ku rajeynaa in muraadkaaga Ilaahay sahlo ummadda Soomaaliyeedna waxay caan ay ku yihiin waliba dad ka horeeyay lagu caawiyay alashan caawinaada inay aad ugu fiican yihiin dad isku kaaxaynay yihiin waxaan rajeynaa nolosha mar labaad inaad jaanis heshid waayo qofku markuu geeriyoodo ariga loo qalaa lacag la dhiibaa laakiin qofka intuu nool yahay in wax loo qabto ay ka fiican tahay insha Allah waxaan rajeynaa qof kasto ay daawanayo inuu u istaago walaalkeen Salaad Yuusuf haddii aad TikTok tahay 8 bisha November barnaamijka u dhigsan TikTok tag xagga waad ka caawi kartaa haddii aad Yurub joogtana oo reer TikTok ahaana linkiga GoFundMe hoosan ku dhigi doona insha Allah waxa ka raac already hadda donation-ka waa bilowday lacag fiican hadda ku jiro insha Allah xilli gool oo sameystay goolkaas uu ka gaaraa insha Allah wali waad ka qayb qaadan kartaa dadka kale oo linkiyada ee TikTok aan shaqo ku lahayn insha Allah soo sheegay waxaan sameeynay oo shaashad soo saari doona telefoon xawaalado oo aad lacagaha ku diri karteen muuqaal lamid inta ku mid doonana waxaan kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo